waxaana loo ku keenay caruurtan waalidadooda ay u keensadeen inay noqdaan caruur oo maaragtay u wanaagsan oo ku farxaan oo qurratul acyun ah. maanta waxaanu kala hadlaynaa birrul waalideynka ayaanu kala hadlaynaa. waxa markaasi xaq awlaadda markay wax bartaan ama ay koraan kow waa inay maaragtay ilaahay rasuulkiisa markii laga yimaado xaqa waalidka wa bil waalideyni ihsaanan oo ilaahay haddana waa waalidadiina inaa ihsaan u sameeysiin waalidadiina inaad ihsaan u sameeysiin waalidka inaad wanaag u sameeysiin baari u noqotiin la idinka raba hooyee aabba baari u noqotiin waalidadii kale oo kasii qulahuma qawlan kariiman oo ilaahay waxaad waalidkiin ku dhahdeen oo dhahay alle hadal wanaagsan hadalka wanaagsan muxuu yahay warkii markuu ka maqla waalidka oo farxi karaa rabo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي با مهد سبحانه وتعالى waxaanu joognaa howlka shirarka oo mu'assasada daarul qur'aan alkariim wal culuum alislaamiyya wal maadiyya sida aad arkaysaan waxaan doonaynaa inaanu awlaadatan mu'assasada wax ka barata inay ka mid noqoto waxyaabaha ay baranayaan darsi oo wacyigelina oo marba qayb laga soo qaadanayo quraanka kariimka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo siirada salafus saalix caruurtan meeshaan dhigata waa caruur aad iyo aad loo tarbiyeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa inay mustaqbalka ay anfacaan jiilalka ayaga la facayo kuwa soo koraya iyo kuwa ka waaweyn inay dalka Soomaaliyeed mustaqbalkiisa ay noqdaan ayaan alla subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa. sidaad arkaysaan waxaa meeshaan aanu doonaynaa oo markaasi waxyaabaha waxbarashadooda ka mid ah inaan maalmaha ay wax baranayaan toddobaadkiiba hal mar maadaama ay wax bartaan inaanu darsi oo diiniya oo tarbiyadooda ku saabsan inaanu siino. maanta waxa weeye bisha dulqacda 21 weeye sanadka hijriyada 1441 taariikhda kale oo ayaduna miilaadiga ah waxaa lagu jiraa maaragtay bishii 7 oo maaragtay 12 maanta ah yoomu sabti waaye duruusi xiriirka ahayd oo wacyigelinta ahayd ayaanu maaragtay caruurta aynu siinaynaa. maanta waxaanu kala hadlaynaa birrul waalideynka ayaanu kala hadlaynaa. waxa markaasi xaq awlaadda markay wax bartaan ama ay koraan kow waa inay maaragtay ilaahay rasuulkiisa markii laga yimaado xaqa waalidka
inay maaragtay ay ilaaliyaan. waxaan loo ku keenay caruurtan waalidadooda ay u keensadeen inay noqdaan caruur oo maaragtay u wanaagsan oo ku farxaan oo qurratul acyun ah indhahoodu waxay ku qaabowsadaan. maxaa ilaa Allah subxaanahu wa tacaala cibaadurraxmaan markuu ka hadlayay sifaadkooda waxaa ka mid aheeday inay leeyihiin ilaahay waa tou dhahay subxaanahu wa tacaala waaladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurrata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama. dadka cibaaduraxmaanka waa kuwa dhahayou dhahay alla subxaanahu wa tacaala oo ku hadlaaya markay ducaysanayaan alla ay baryayaan waaladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina ilaahayow rabbiyow nooga hibay haweenkeenna iyo caruurtayna wax indhahaynu ay ku qabowsadaan. haweenka iyo caruurta ka ilaahay uu ka keenay waxaa markaasi wanaagoodu uu yahay oy ku fiican yihiin inay noqdaan qurratul acyun. qurratul acyun waxay ku noqdaan macnaha tafsiirku waxa weeye bian naraahum mudiiciina lakay ka wadaan waa ilaahayow inaanu aragno ayagoo rabbi oo adiga ku adeecaya. marka caruurtan waxaa la rabaa xuquuqda ilaahay rasuulkiisa iyo xaqa waalidiinta inay bartaan, xuquuqda maaragtay muslimka ay bartaan, xuquuq walba inay bartaana la doonaya oy ilaaliyaan. marka hadda waxa weeye waalidkiina inaad baari u noqotiina la rabaa. ilaahay quraanka wuxuu leeyahay waladiina ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah. ilaahay wuxuu waajibiyey oo amray inaydaan caabudina ilaa isaga mooye. oo marka ugu horeysa xaqa ilaahay waa inaad baratiin oo caruurta inay xaqa ilaahay bartaan ayaa la doonayaa. waa inaad xaqa ilaahay baratiin. markii alla uu dhahay subxaanahu wa tacaala wabilwaalidayni ixsaana nawdha ilaahay haddana waa waalidadiina inaad ixsaan u samaysiin. waalidadiina inaad ixsaan u samaysiin, waalidka inaad wanaag u samaysiin, baari u noqotiinaa laydinka rabaa. hooye aabba baari u noqotiin, waalidadii kaleoo kasii damo awowyaala iyo baari u noqotiin. waxay rabaanoo wanaag aad u samaysiin, aad jeclaatiin aa laydinka rabaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasoo nafaraya imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa. waalidka waxaa dhacaysa adinka waa yaryartihiin waa duqoobayaan, markaas waa tabar beelayaan. ilaahay wuxuu leeyahay haddii mid ayaga ka mida agtaada ku gaboobo ama ayagoo wada jira labadaadi waalid hooyo iyo aabbo ay waalid tabcaan oo masaakiin ay noqdaan falaa taqul lahumaa uffin ow dha ilaahay ha ku dhihin uf. waalidka in kelimo xunoo qabiixa la yidhaha lama rabo. waalidka biriyaa la rabaa. qofkii waalidkiisa caasi ku noqda ahlu naarow naqanaa. kelimadaas uf waxaa weeye kelimo oo carab iyo cajamiba ay ku dhaqanto. walaa tanharhumaa hana canaanana cunugii waalidkiisa war hadduu yidhaahdo hadal canaan ah ambase waalidka ou kahanayo ku yidhaahda caasi waalidayn ou naqanaa. caasi waalidayn ahlu naar waaye. nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam qul licaaqi waalidayhi yacmalu maa yashaa fa ina masiirahu ila naar. caasi waalidaynka waxaad ku tiraahdaa waxa uu doono camal ha sameeyo, cibaado kasta ha sameeyo, meesha u dambaysa naar waaye. marka waxaa la rabaa waalidkiina baari inaad u noqotiin, waalidkiina jeclaatiin, waxay ii qabtayna u qabatiin, hadday xoog beelaan aad u shaqaysiin aa laydinka rabaa. hadda walaxaad barahaysiin waxaa barahaysiin waalidkiina aad ku anficaysiin. haddaad shaqo baratiin ood xirfo baratiin waalidkiina ugu shaqayhaysiin. marka saasaa la rabaa. walaa tanharhumaa. qof waxaa jira hadduu waalidkii saas yidhaha maxaad iga rabtaa oo hadalka ku xoojinaya caasi waalidiinnimo waaye. waqul lahumaa qawlan kariiman ow dha ilaahay waxaad waalidkiin ku dhahdiin ow dhahay alle hadal wanaagsan. hadalka wanaagsan muxuu yahay? warkii markuu kaa maqla waalidkaa ou farxi karaa la rabaa. hadduu waalidku kaa maqlo war uusan ku farxin oo aad ku dhibayso waxaad ogaahaysaa caasi waalidiinaad tahay. ahlu naaraad noqonaysaa, khatar waaye. waqfid lahumaa janaaxa dulli ow dhah ilaahay waxaad waalidka u raaricisaa alin jaanibaka daliil
waalidka markaa soo og istaagto ood hooyada iyo aabbaad u timaado inaa isu jilcisaa la rabaa si xooga inaasan usan adoo xoogaa isjajabihayo miskiin iska dhigaya waalidka inaa saas ugu tagtaan rabaa adoo xoog iyo ismuujaya lama rabo waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxmati ul ilaahi naxariis daraaddeeda waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxmati naxariisaa la raba markaas naxariisaad ka wadaa haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waqul lahumaa qawlan kariiman waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxmati waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran haddana waxaad waalidka ku tiraahdo u ducayhaya ilaahayow labadeedii waalid u naxariiso siday iigu naxariiseen markay i korihaayeen anigoo yar adoo yara dhulka waalidka kaa soo qaaday markaa sida ay naxariista kuugu qabeen hooyada aabbaha oy kuu sideen markay waaweynaadaan adigana saasaa lagaa rabaa waqul rabbi irxamhumaa ilaahayaana dhahaya waalidkaa waxaa ku tiraahdaa adoo ilaahay u baryaaya ilaahayow u naxariiso labadeeda waalid say iigu naxariisteen markaa anigoo yar ay isu naxariisteen hadda yaraa tihiin waalidka waa idin naxariiso waaya walxow idin barowhaya tacliimow idin baraya cuntow idin siinaya dharow idin siinaya waa idin qubayhaya waxaasoo dhan maxaa laydinka rabaa idinkane hadhow inaad soo guddiinaa laydinka rabaa hadhow waalidka isagana waa duqooba sida hadda xoog yartiina biri xoog yaraahaya waxaa la rabaa marka inaad wixii ay idin sameeyeen aad u samaysiin si aad janno aad u heshiin hooyada ma ku sii jirto nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam aljannatu taxta aqdaami alummahaati jannada waxay ku jirtaa hooyada lugahooda hoosteeda hooyada haddaad caasi ku tahay hadhow jannaday kaa celi jannaday kaaga soka mare meeshaasaa jannada dhammoo la gelsho jannada aakhiro la gelaayo wax kasta aad ka helaysid wax kastaa ka helaysaa cunto wax kastaa ka heli wax kastaa ka helaysaa webiyaal aad ku dabaalatay wax kastaa ka heli laakiin maxay tahay hooyada inay raalli ka taal rabaa qofka hooyadiisa caasuka ma kusii jiraba kaas yaa marka waalidka ha loo naxariiso marka qur-aanka aad baraysiin wuxuu keenayaa in hadhow waalidkiina taaj ay gashadaan taaj nuuraaya waa dharka qurquruxda badan oo saas oo la gashahayo maalinta qiyaama nabigu waxa uu dhahay man qara alqur'aan uu dhahay xadiis abu daawud wariyo sanadkiisu wanaagsan yahay qofkii quraanka akhriya wa amila bima fihi waxa quraanka ku jira ku amal fala ulbisa walidaahu labadiisa waalid iyo kuwa ka sii dambeeya waxa loo libisaa yawmal qiyaamati maalinta qiyaamo oo adduunka laga tago taaj ayaa loo gelaa لو أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا كورمه هذا القرآن كبرته قرآن لا يدين بروها أذكر عمل فشين أذنك إسكاد عافية والدادي إنذن علي هذا قيام مركي لقارة تاج أو رحضان كأفتين بدن قرح هذا هي تاج كاسمركي لأسكرب لقو قرح هذا لما ذوبيها قرح هذا ولا أفتين بدن حيكوها للمركي والدكم quraanka ay barahaysiin oo idin barayaan ay ku helayaan lama dhihin luqooyin kale iyo adduun iyo ingiriis iyo saynis iyo juqraafi iyo waxaas lama dhihin dadka waalidkaana waxa la rabaa awlaadooda inay quraanka kula dadaalaan sidaan oo kale ay u qurxiyaan quraanka loogu dadaalo qofka inuu murugtiisu ay haato inuu quraanka ilaahay barto quraanka haday ilmuhu bartaan waxay helayaan alxamdulillaah wax kasta ilaahay albaabooda furaya qofkii raba in taaj loo geliyo maalinta qiyaamo ilmihiisa ku tarbiyeeyo inay quraanka bartaan maalinta qiyaamo taajkaas loo gelaa qoraxdaas ka iftiin badan ilaahay qof uu taaj u gelay nuuraaya ma naar ma gelaa la ma gelaayo maxaad ku hesha marka ilmahaagood quraanka baraysid waay markaasoo nabi wuxuu famaadannukum billadii amila bihada maxaad u maleehiisana qofkii asiga quraanka ku amal falay qofkii quraanka oo ku amal falay maxaad u maleehiisana waa ka sii daran yahay adiga daraada waalidka taajka loogu geliyay ka waran marka adigana saad haysa iftiin iyo nuur aad qiyaam helaysiin marka caruuray insha Allah taala saas ku dadaala quraanka barashiisa xoog saara waxa kalena waa baraysiino maadiga waxa dadku bartaan waa baraysiin muassasadan wax kasta waa lagu baranaa hadhow muassasadan waxaad gaaraysiin
dugsi saraad dhigaysiin jaamacadaad gelaysiin waxa maaragtay adduunka dadka waxa uu haystay takhasusaad ku qaadaysiin hadhow idinkoo diinta yaqaana wax kasta bartay leedin baahan yahay dadka kitaabada u akhrihaaya iskuulka u dhigaaya jaamacadda u dhigaaya aad maaragtay aad caalamka meel kasta tagaysiin markaasaa la idin baryaaya waxaana alxamdulilaahi marka idinku dheeray maayo darsiga oo maaragtay asbuuclaha oo tarbiyatul awlaad ayaan maaragtay ka wadnaa intaasana ku soo koobi doonaa waxaan dardaaran aan sii haynaa waalidkow waxa weeye dal iyo dibad joogow ilmahana waxay isugu jiraan dad qurba jooga ilmahooda dad maaragtay oo waxa weeye gobolada ka yimiday dad wadanka degan oo muqdisho iyo agaarheeda degan intaasay isugu jiraan marka ma sha Allah waxay heli doonaan ilaahay idankiisa saa anagu la rabno mustaqbal fiican ay heli doonaan ilmahan marka insha Allah taala annagana ilaahay subhanahu wa ta'ala soo barbaariyay annaguna iyaga waa barbaarinayna insha Allah taala waxa weeye muassasadu sidaasay waxay maaragtay ilmaha in ugu daashay rabtaa waxa weeye nafteenan ka jecelna awlaadan insha Allah taala waana maqaam gaari doonaan marka sidaas daraadeeda waxa weeye darsigii koobnaay oo tarbiyatul awlaad ahay intaasan ku soo koobaynaa hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh